ninka bisha Ramadaan salaad taraawiixda u kaca buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wassalaam isagoo ilaahay ku kalsoon oo iimaan qaba waxtisaaban ajar iyo thawaabna ilaahay ka dalbayo ilaahay ka rajaynaya ajar inuu ka siiyo cibaadada isagana dembigii horay uga dhacay oo dhan baa laga dhaafaa buu nabigu calayhi salaatu wassalaam وابشا ونبينا يدي عليه الصلاة والسلام هدي متكين وأفرايو تمرها كو أفرب ونبي يقول تمر هدي وتمر ويانا بيها عادها كو أفرب ورسولك وشريعة الإسلام هو عجيب لابد الدواء كجرته وقوم تمرتا محو النبي يقول تمرتا وهو الرئيسي وحال عنتدى إلى هاي دولك أو كسو صار أو دن مذ والب في تميغا كجرتا أيا تمرتا ودن إلى هاي كو أبو ريبا لي hilibka fitamiga ku jira timirta waa laga helayaa caanaha fitamiga ku jira timirta waa laga helayaa bariiska fitamiga ku jira timirta waa laga helayaa wax liya waxa nabaataat iyo khudrawaat iyo maaragtana nicam ilaahay bin aadanka uu siiyay cunayaan mid walba gaar ahaan fitamiga si gaar ah iyada loogu abuuray ayaa ilaahay intuu soo jamciyay baa ilaahay timirta inoo soo dhaxgeliyay timirtu waa nicmada muslimiinta ilaahay khaaska uga dhigay waana zaadkii muslimiintu ay diinta caalamka oo dhan ku gaarsiiyeen asxaabu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam radiyallahu anhum ajma'in markay risaalada muhammadiyada ay xambaarayeen adduunyada gaarsiinayeen zaadkay isticmaalayaan wuxuu ahaa timir buu ahaa timir mana xumaato taariikhdeeduna ma dhacdo saalixiintu waxay odhan jireen aqalka timir aynan oolina faqri baa aqalkaa yaalla markaa buu nebiguna leeyahay calayhi salaatu wassalaam ninkii soomayow haddaad soontid buu nebigu leeyahay kiina afuraya timir ha ku afuro hadduu timir waayana biyaha cad ha ku afuro biyaha cadna waa daahir buu nebigu yidhi oo micdada jidhkaaga jeermiskii ku hadhay oo dhan bay bannaanka u soo saarayaan bishani waa ilaahay ayaad ugu dhowaanaysaa qofka muuminku ilaahay buu ugu dhowaanayaa dembi dhaaf buu ka helayaa naarta ilaahay kaaga xoraynaya darajaadkaaga kor loogugu qaadaya caafimaadka ayaa kuu ziyaadaya waa bishii qur'aankuu soo degay weeyaan nebigeenna moxamed calayhi salaatu wassalaam jibriil calayhi salaam intuu u yimaado ayaa isagii jibriil bishaa Ramadaan qur'aanka ay darsi jireen qur'aanka ayay akhrin jireen qur'aanka marka inakuna waxaa laynaga doonayaa inaan bisha maalinteedana aan wakhtigeenna aan buuxinno oon cibaadada iyo salaada iyo qur'aanka iyo dikriga iyo daacadda ilaahay iyo mudaarasata alcilmi aan ku buuxinnaa laynaga rabaa habeenkiina salaataleyl iyo munaajaad iyo salaata taraawiix inaan wakhtigeenna ku buuxinnaa laynaga doonaya laba meeloodba shayddaankaa gala bay culimmadu yidhaahdeen wakhtiga madhanna shayddaanka ayaa dega aqalka madhanna shayddaanka ayaa dega marka qofka muslimka la dooni maayo wakhtigiisa inuu ka dhigo firaaq bal firaaqa wakhtigaaga ka ilaaliyo buuxi oo maxaan ku buuxinaynaa waxaan ku buuxinaynaa bishani maadaama ay tahay bisha qur'aanku uu soo degay qur'aanka akhriskiisa ayaan badinaynaa maadaamuu nebigeennu calayhi salaatu wassalaam bisha malakul jibriil intuu u yimaada qur'aanka ay wada darsi ay jireen innakuna bisha Ramadaan waxaa la doonayaa qur'aanka inaan darsino ood ugu yaraan bal maalintii hal juz oo qur'aan aad akhridaa si bisha Ramadaan qur'aanka mar aad u khatimtaa haddaad saddex juz maalintii aad akhridana waxaad khatimaysaa saddex jeer baad qur'aanka khatimaysaa haddaad 5 juz aad akhrida qur'aanka maaragtaane maalin kastana lixdii maalmood baad qur'aanka ku khatimaysaa oo laga yaabaa bisha Ramadaan inaad khatimto maaragtaane 6 jeer 7 jeer Uthman bin Affan radiyallahu anhu ayaa odhan jiray haddii quluubtiinu daahir ay noqon lahayna qur'aanka akhriskiisa kama daasheen buu odhan jiray qur'aanka akhriskiisa kama daasheen lidaalika waxa salafu saalix culimmadu ay sheegaan saxaabada ma hayna dadkii ka dambeeyay xataa taabiciintii taabicu taabiciin ilaa yowmina haada dad waxaa la helayaa qur'aanka maalintii mar khatimaaya qaarkoodna 2 jeer bay maalintii qur'aanka khatimaan oo waa la helaa imaam ashaafici raximahullah ayaa laga sheegay inuu bisha Ramadaan 60 jeer qur'aanka uu khatimay 60 jeer